سؤال waxaa ku leedahay haddii jaanis lagu siin lahaa inaad qof fan ka saarto fanaankee fanka Soomaalida ka saari lahayd hees fiican ma qaado wiji fiican ma qabo aqoon ma leh baahi waa dambi waa ilaahu isku dirooya fahanti hadda yartum loo maqlo walaalkiina ka xisho ilaahna ka xisho waa saddex lamu imaan hees maaragtay maxaa la dhihi jiray ku habboon lamu imaanin abo balbalaarka oo cunaa baabo hawadaan ku cunaa balbalaarka iyo kan faldegan sababta maxay tahay saaraysa marka ay qashqash waano fankii nooga cayaaray Soomaaliga dhan heesiye dadka nacsiinayaan sabiican maxaa marka dadkaas ugu dambeyn fanka faraha nooga qaada dhiilaha taas su'aal inkastoo su'aal ay tahay laakiin anigu fanaaniinta inta badan horta waa taageera عدنا ملا قروحنا ملا دعاس دعوتين وقيب كله هي برامج كنا قال كده دوينها أو ما أنت سؤال أدو حسب بدنا شعبكم مقدشوا هاي نودينيني سؤال شيء ما أنت يا هيد هدي الودي لا كسر فنان فنك الصوماليات فنان كسر الله هيد شعبكم مقدشوا أرتيك دوية كليبتين أنا سرد دعوانو شعبك إيوه سؤال شيء ما أنت نوديني قاب كيورع عليين بس ملك ورا لايك شير كومنت يوتيوب كنا صور كنا نقصوا بيربيج كنا قال كده دوينها عن دعوانو فالعين ده رر مقدشة سؤال شيء نمانت سؤال قال كده دوينها هذا ما عينه بلاوي حسنا جلالك معنا وكل هاي مقعد حسين بالها جنالكين ما شاء الله سين هذه أدوة وحرنا هاي دار مرة اسكت لكم يعني يمسور تقرين ما أنت يعني جانس ولا وكل ولالك معنا سؤالك وديننا ما أنت ديار متاعي أوكي ديار أنا شو أقول هذا هاي هدي ولا قفن كسر فناك بكسر لك بس سؤال إنك سؤال إنت لكن أنا فنانين أنت بدون أرتوا تاجرة لكن فنانين إسلوين مجعل سيكي وكلاتيو ما تاجروا كردجنيو تاجروا كاس يعني بعض إسلوين هذا لكن أنت بدون فنانين تواتا حتى صعدال قدر أوه تا هذا ما صدق ما كرو كسدو كان قفت دوينها هذا ما عينه بلاوي ما عاد السجلة وكله هاي سجلة صبرنا كودين ديار متاعي سؤال شو عقول هذا هاي حدي جانس الوصول لها كيبا فنك اسمه ذا كسر لهي فنك Soomaalida ma ahana waxa ka saar lahaa socdaal iyo balbalaarkii faldegan iyo kuwaas ka saar lahaa fanku cayaaraya sababta maxay tahay saaraysa marka bas fankii nooga cayaaray Soomaaliga dhan heesiye dadka nacsiinayaan sabiican maxaa marka dadkaas ugu dambeyn fanka faraha nooga qaada dhiilaha meelaha kale ku fiicnaa meelaha kale aad amaana siyahana ceebayna waa santahay ku soo channelkeena ama kanalkeena galka dadweynaha oo magacaaga noogu bilaabay علي عبد محمود علي وسلام كودينا ديار متاعي ديار وا ساشو waxaa ku leedahay hadii jaanis lagu siin lahaa inaad qof fan ka saarto fanaankee fanka Soomaalida ka saari lahayd yartum luwaya sababta maxay tahay marka ما hees dhintiyo meesha ku haayano safiican hees fiican ma qaado wiji fiican ma qabo aqoon ma leh baahi waa dambi waa ilaahu isku dirooya fahanti hadda yartum luwaya maqlo walaalkiina ka xisho ilaahna ka xisho waa saddex soo kanalkeena galka dadweynaha oo magacaaga noogu bilaabay magacayga mahad Cabdullaahi Umar Allah fahanti malena waana dhawaa wata maado salaam ku diinna diyaar mataay diyaar ah saashu waxa ku leedahay hadii jaanis lagu siin lahaa oo awood lagu siin lahaa inaad qof fan ka saarto فنانكي فنك Soomaalida ka saari lahayd يعني سعدالان كسر وما صوت معي تامك يعني وجه ماشي مو كوي مو سبيعل إن سياسوا وحيوك الفكرة وصار سمعتها إنك كحول لهاد الفكرة وصار لهاد يعني بلشة يعني وجه كهري ما ما استمو تالنتيس كور تالنتيس هذا اللي تامو ما صدق كسروا إن كانال كنا قال كده دوينها هذا ما عجنوا بلاوي ما شاء الله أحمد أيه أحمد علي أحمد علي وسألك ودينا دير متاعي يدي ديار سؤال شو عقول هذا هاي هدي جانس الوصول لها هنا تقف فنك كسرته فنان كيف فنك Soomaalida كسر لهاي سعدال صوته وساري سمعتها عدنا ملا قروحنا ملا أي ياكل قدر له ده قبلها ما شرم بوني وين ما قبلها دنكود فنانين تاي كسر لهاي نين يا كسر لا نيني دانس صوت بعدها بقى فنك قافنا يا مليب إذا كسر لا فنك dadka fanka dadka maxallada ku duleen marka soodkay ma leedahay fanka saxda ma leedahay ما كجيفتا إلى كوردا إلى magaalada saxda ma santahay ma kor ku soo dhawow kanalkeena galka dadweynaha adoo magaca noogu bilaabay dhawaa walaal Yaxya Cabdi Faarax xaliina Yaxya su'aal ma waanta dadna ku diino diyaar mu tahay diyaar ah saashu waxa ku leedahay waxa jaanis ama awood lagu siinaad qofka fanaana aad fanka saarto hadaba adima fikirka ama fanaankee fanka Soomaalida ka saari lahayd fanka Soomaalida aan ka saari lahayn socdaal ka saari lahayn ninkaas qoomuluudku eg ka saari lahayn sababta wasaar sibcayta markaa war asoosas u fool xumni oo u fil daran oo waqti iyo wax la wareegay magaalka
taasaa u dulqaada la'a ilaa hadda niyo ninkaas sharmbo ee dhaayaan dadkan waa ka saaraynaa fanka waa nin taalanta leh niyo nin walaalkeena ee waaye horumarkiisana ma ku qabsanayno raaxadiisa ha qaato waa jeclaa in raaxadiisa inuu qaato ha raaxaysto ku soo dhawow galka dadweynaha adoo magacaaga ku bilaabay xabsi maxamuud cali soo baan ku weydiinaa diyaar ma tahay haa su-aasha waxay ku leedahay fanaankee fanka Soomaaliya ka saari lahayd wallaahi bilaahi inkastoo aana jeclayn su-aashaas kadis ay iga dhigteen fanaan in laga saaro ma jeclaadeen laakiin haddii fanaan laga saaraayo waxaan ka saari lahaa maxay hayto wiilka oo maaragtay fanaanka yarkaa oo socdaal maa la dhahaa kaasaa ka saari lahaa sababtu waxay tahay dee lamu imaanin hees maaragtay maxaa la dhihi jiray ku habboon lamu imaanin adigaa mudan ku soo dhawow marka hore galka dadweynaha kanaalkeena adoo magacaaga noogu bilaabay waa ku dhowahay cali cabdiqaadir caliyow saamirana ku weydiino diyaar ma tahay diyaar haddii lagu dhihi lahaa fanka Soomaaliyeed fanaanka ka saari lahayd wallaahi horta fanaaniintu way fara badan yihiin intana ma ku eko laakiin ani ahaanteeda ma wasbiya cun lahay baaba sababta u saaraysa maxay tahay marka ninkaas fanka shaqo ma ku lahan xoogo wata baaba fankana shaqo ma herman cali iyo qabiil iyo meesha ka dhigay waa tahay dhanka hablahan ay ka saari lahayd marka abo balbalaarka oo cunaa baaba hawadaan ku cunaa balbalaarka laakiin sababta waxay tahay soo talent qof talent loo heesaayo fanaan talent ya leeda fanaanad weyn waay fanaanad famous waay laakiin talent oo faneed ma lahan ma lagu tirgala fanka bo almin riwaayadaha sameeyso marka dhinaca riwaayada warijeeda fanka ka saari lahayd adaa ma santahay ku soo dhawow kanaalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga ku bilaabay waa ku dhowahay mareen soo ku diina diyaar ma tahay saashu waxa ku leedahay haddii lagu dhihi lahaa fanka ka saar fanaankee doorareed oo fanka ka saari lahayd number 1 CK number 2 socdaal iyo kan faldegan sababta maxay tahay u saaraysa marka qashqash waano talent malaamaya ma santahay maahir waxaan ku weydiinayaa haddii lagu dhihi lahaa qof fanka saar yaa fanka saari lahayd sharma boy sababta u saaraysa maxay tahay sababta qur'aan oo wuxuu ku soo darayaa heesaa sida alamtara waxaas uu ku soo daray dhawow kanaalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga ku bilaabay waa maasan tahay waa ku dhowahay magacayga waa sihaam sihaami saarana ku weydiino diyaar ma tahay su-aashu waxaa ku leedahay haddii jaanis lagu siin lahaa ama awood lagu siin lahaa inaad qof fanka ka saarto fanaankee fanka Soomaalida ka saari lahayd wallaahi dad badan ka saari lahaa yaa kamid oo badan ayaa kamid kuwa jirka haweenka ka hadlo dhan waa ka saari lahaa barqbarqa badan leh magaciisa sheeg hebel laaday horta hore kan dheerka waa ka saari lahaa kan dheer oo kulooda dheeriye magaciisa waxaa la dhahaa araash waa ka saari lahaa CK waa ka saari lahaa waxaa kaloo ka saari lahaa futuma balaarka saaxiibkeed magaciisa asna iga maqanay waa ka saari lahaa asagana dhanka hablaha ka saari lahayd hablaha dumarka maasha Allah nin dansiga iska saar ayadana iska bixi kuwaas ku biirtay farqada ku biirtay iska bixi yaa kala ku dhimo marka ka saar lahayd ma dumarka inta ugu badan maasha Allah waay ragga waa badan lahayd ragga waxna ceeyo oo fanka hoos u dhigay ayaga waay be waa laga bixina santahay kor ku soo dhawow kanaalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga ummadda Soomaaliyeed uu sheegaya iyo anagaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Naciimo Cali Nuur magaca ganacsiga waa Umu Fuaad Beauty Salon maanta waxaa wadanaa su-aal dadka qaarkood siyaabo kala duwan ugu jawaabayeen inkastoo adiga qof ay aragaa tahay su-aasha waxay leedahay haddii lagu dhihi lahaa fanaan ka saar fanka Soomaaliyeed yaa ka saari lahayd horta والله horta fanka hadii ay tahay hadii la iska aqbalayo asa dhan waa la joojin lahay leena wax aan qaran u fiican ma ahan adduunkan uma fiicno waa wax fasahaad wax dhib badan marka asa dhan baa la kansal garay dhila daw kansal maayo marka adiga waxa dhiileed waa in qof weyn ma dhahayo kulli fanka ka wada baxaan kulli waxa laga baxo taasaan dhila